السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمان أصحابتك حرن جانلك waxay noo socday qisooyinkii nebiyada maanta waxaynu ka hadli doonaa qisada nebi shucayb calayhi salaam. nebi shucayb calayhi salaam waxa uu ka mid yahay nebiyada alla subxaanahu wa tacaala uu soo diray ummadda si ay ugu yeeraan xaqa iyo cibaadada alleh. wuxuuna ahaa qof cilmi iyo xigmad badan, sidoo kalena hadal macaan, wuxuuna dadkiisa ula hadli jiray si dabacsan. nebi shucayb calayhi salaam waxaa loo diray qabiilka madyan oo ahaa dad ganacsiga aad ugu firfircoon. qabiilka madyan waxay ku noolaayeen dhul u dhow badda cas. reer madyan waxay ahaayeen dad ganacsiga ku caanbaxay, laakiin waxay la yimaadeen dhaqanxumo. dhaqanxumadaasina waxay ahayd inay dadka khiyaanaan, waxayna ku qiyaami jireen miisaanka iyo cabbirka. sidoo kale waxay ahaayeen dad sameeya dulmi, waxayna qaadan jireen waxaysan xaq u lahayn. sidoo kale waxay la yimaadeen shirki iyo gaalnimo, waxayna caabudi jireen ilaahyo aan ilaahay ahayn. nebi shucayb calayhi salaam wuxuu si dulqaad iyo xigmad leh u waanin jiray dadkiisa, wuxuuna ku dhihi jiray cibaadada alle keliya u kala yeela, iskana daaya sanamyada aa caabudisaan. sidoo kale miisaankana ha dhimina, dadkana xaqooda si buuxda u siiya. sidoo kale waxa uu dhihi jiray hanuunqanina kuwo wax dhaca ama jisgooyo sameeya, xaqana raaca hana dulminina dadka. reer madyan waxay diideen fariintii nebi shucayb calayhi salaam, waxayna ku yidhaahdeen shucaybow, ma waxaad rabtaa inaan ka tagno ilaahyadeennii iyo dhaqankeennii? waa ayna ku jeesjeeseen fariintiisii, waxayna ugu hanjabeen inay ka saari doonaan magaalada. markii ay sii badatay xumaantooda, alla wuxuu ku soo dejiyey cadaab daran. cadaabtaasina waxay ahayd in lala rooxay dhulka, taasoo keentay in guryahoodii oo dhan ay baaba'aan. sidoo kale cirka ayaa waxaa kaga yimaaday qiiq kulul, kaasoo gubay dadkii oo dhan. sidoo kale waxaa ciqaab looga dhigay qaylo dheer, taasoo dhammaan dadkii nafta ka saartay. reer madyan waxa ay noqdeen qabiil baaba'ay, waxayna la kulmeen ciqaab la mid ah tii ay la kulmeen qoomuluud. nebi shucayb calayhi salaam iyo dadkii rumeeyey alla subxaanahu wa tacaala waa uu badbaadiyey. nebi shucayb calayhi salaam iyo dadkii rumeeyeyna waxay ka baxeen magaalada ka hor intaysan ciqaabta dhicin. qisadan teed xigta waxaan ku soo qaadan doonnaa qisada nebi ayuub calayhi salaam. intayna isaga imanayno kulan dambe, waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.